assalaamu calaykum. Inta badan Soomaalidu waxay tiraahdaa yaraantiisa qofkii soo jabay soo dhabar adeegay ayuunbaa noloshan heer ka gaadha. Laakiin qofkii barwaaqadii yaraantiisa soo shaqay inta badan nolosha isma dhibo oo heer ma gaadho. Arrinkan waxaa garanaya dadka aad wax u akhriya, waayo inta badan dadka aad iyo aad guulaha u gaadhay waa dadka yaraantoodii dhib soo maray ama aad iyo aad u soo dhabar adeegay. Haddaba waxaanu isla eegaynaa wiilkii Soomaaliga ahaa ee $15 ku taajiray kuna ganacsaday. Waxa uu ka bilaabay magaalada Hargeysa isagoo $15 soo amaahday oo siistay tanag timir ah. Dabeedna waxa uu saartay waxa loo yaqaan gaari gacan ama carry-on, halkaas uu kaga ganacsan jiray marba heer buu sii marayay. Maalintii oo dhan waxa uu faa'iidi jiray wax ka yar $1 ilaa uu markii dambe miiskii keenay ama miiskii ku soo kordhiyay waxa la dhaho caano xidhxidh iyo lows. Markii dambe xoogaa soo dalacayna waxa uu sii gudbay maryaha, hudheedhka iyo maryaha kale oo ay gaar u leeyihiin danyartu. Markii dambe miiskii waxa uu ku soo kordhiyo daahiyo iyo maryaha waaweyn ee guryaha lagu xidho. Maalinba maalinta ka dambeysana horumar muuqda ayaa uu soo saarayay. Haddaba waqtigan ku sheegay waxa weeye waqtigii dagaalada sokeeyay laga soo kabanayay wadankuna uu iskaga jiray burburka, sixir bararka iyo waxyaabo aan sawiran karayn. Haddaba waxaynu oran karnaa wiilkan Saleebaan waa uu soo dhabar adeegay, waayo suuqyada Hargeysa oo waaweyn oo bandowa aynu oran karno iyagoo sixir barar ka jiro, dagaal ka jiraan ayaa uu haddana bartaa ka soo bilaabay shaqada. Haddaba waxaynu oran karnaa Saleebaan waa uu soo dhabar adeegay, waayo meel hoose ayaa uu ka soo bilaabay, wax kastana xagga hoose ayaa laga soo bilaabaa. Haddana shirkaddan waxa weeye shirkadda la dhaho Al-Hayaat Furniture, waa mulkiilaha shirkaddan bartan maraysa. Haddaba waxaad qiyaasataa shirkaddan weyn intan baaxadda leg bartii laga soo bilaabay waxaa laga soo bilaabay $15 oo amaaha bartana lagu keenay. $15 markii dambe waa la iska bixiyay, waayo maxaa la yidhi hal dhagax ayaa laba shimbirood lagu wada dilaa. Markaa ninkanu $15 ayuu dhowr shirkadood iyo dhowr shaqo ku wada dilay. Haddaba qofka bini'aadanka waxaa looga baahan yahay adduunkan inuu wuxuu ku soo kordhiyo ee aanu culays la dul saarnaan. Haddaba markan adduunka shaqaalaha ka socda iyo shaqadiisa aan saa ugu fiirsaday waxaan u maleeyaa ama aan u jeclaaday in maanta iskaashiga iyo shirkadaysigu aan wax dhaaman la helayn. waayo hadduu qof kasta dhow waxay gaar badan u wadanayaa horaa maxaa loo yidhi gacmood jir bay wax ku gooyaan. war waxaan leeyahay inuu iskaashanno, war aynu adduunka meel ku soo muuqanno. Maanta waxaynu nahay isticmaalayaal wanaagsan laakiin ma nihin samaystayaal wanaagsan. Haddaba mulkiilahan alaabtiisa waxaa laga dalbaa Shiinaha, Turkiga, qaarna dalka gudihiisa lagu sameeyaa. Markaa waxaad arkaysaa halkaa in laga taabtay waxtar aad iyo aad u weyn, bulshadan wax badan ku soo kordhiyay, ajar badanna uu ka shaqaystay. waayo xayawaanka waxaa loo qaybiyaa caaqil iyo khayru caaqil, yacni mid fakera iyo mid aan fakerin. inaad wixii ku guulaysato waxaa ka horeysa inaad ku guuldarraysato, wixiina aad ku fashilanto. innaga haddii mid inaga mid ah uu fashilmo waxaa la odhanayaa war qofkaasu sheeko ma haya naga daaya, ama ugu yaraan waxaa lagala hor imanayaa cay iyo dhibaato. kaasina intaa inaga mudna ee wuxuu inaga mudan yahay garab iyo dhaqaalaba inay la dhinac istaagno, xitaa haddayna waxba ku tarayn aynu ammaanka ugu dadaalno oo aynu faraha ka qaadno. haddaba anigu sheekadan waxaan ka soo ururiyey ama aan ka faa'iiday 3 wax. 3dan iga qabo. Number 1, inaad ka fogaato waxyaabaha caajiska ee markasta aad hawshaada ku dadaasho aanad sii laban laabto, aanad iska ilaaliso caajiska. Number 2, samirku waa muhiim qof kasta, waayo bini'aadan baynu nahay. Number 3, alhimatul caaliya, waxyaabaha loo yaqaan himada sare, qofku inuu yeesho hami dheer oo sareeya. adna walaal commenting nagu soo reeb wixii aad ka faa'iiday iyo haddii aad haysid sheekooyin kale noocan oo kala. wassalaamu calaykum.